السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا وناسن طبعا أصحابي لما جوتان waxaan leeyahay waqti ha idin wacnaado teedi kale halkani waxaan ugu yeerayaa nin walba oo raba inuu bilaabo ganacsigaas weliba laakiin uu ka baqanayo lacagta uu haysto iyo halka uu ka bilaabi lahaa waxaad ogaataa wax waliba waxay ka bilaabmayaan min eber ayay ka bilaabmayaan haddii aanad waxba haysanin waxaad ku bilaabi kartaa waxa la yidhaahdo credit ama deyn saas oo kale xooggaagii intaad soo shaqaysato ayaad ganacsi ku bilaabi kartaa ganacsiga ugu yar waxaa laga bilaabi karaa eber saas oo kale $10 oo lagu bilaabi karaa laakiin ganacsigaasi ma noqonayo mid mar dhow guuleysta ganacsiga haddii aad rabto inuu dhowaan guuleysto waa inaad ugu yaraan aad ka bilowdaa $100 $100 haddii aad haysato waxaad haysataa fursad aad ku bilaabi karto ganacsi lagu kalsoonaan karo waa haddii shuruudihiisa la maro marka haddii horey aad ula dhibaneed ganacsigaagii aad la daalaceysay waxaan muuqaalkan kugu dhex sharxi doonaa fikradaha ganacsi oo adiga ku caawin kara sidaas oo kale waxaan halkan kugu sharxi doonaa wax ganacsigaaga horumarin karo oo ka dhigi kara mid maxalle dadka oo dhan u soo hayaamaan saas oo kale muuqaalkan dhammaadkiisa waxaan ku sharxi doonaa 3 qalad ay galaan dadka ganacsatada cusub marka haddii maxaa la yidhahdaa channelka aad ku cusub tahay subscribe saar haddaad horey noola joogtayna muuqaalka la garay meel dheer ha gaaro waa Cabdiqaadir Xasan Cabdi halkaan naga daawanaysaan Somali Info Center marka soo dhawaada ayaa idin leeyahay asxaabteydii waa fikradaha ugu muhiimsan oo lagaa rabo inaad ganacsigaaga ku bilowdo waxa weeyaan kow inaad yeelato fikrad ganacsi waxaad iibin lahayd halkaad ku iibin lahayd sidaad u iibin lahayd ee qiimaha aad gadi lahayd iyo faa'iidada halkaas aad ka raadin lahayd ogow haddii aad hesho 30 qofood oo macaamiil ah oo min $1 kaa iibsata ayaa ka wanaagsan 3 qofood oo min $10 kaa iibsatay waayo saddexdaas qofood way kaa fashilmi karaan way isku dhici kartaan laakiin 30 qofood haddii 3 qofood isku dhacdaan ogow waxaa safe ku ah 27 marka waxa ugu muhiimsan oo ganacsatada ay raadiyaan waa macaamil ama qof wax ka iibiya sidaa darteed kow yeelo fikrad ganacsi lambarka labaad waxaa weeyaan lacagtaadii oo dhan ha ku wada bilaabin haddii aad $100 haysato $50 ka bilow deetana waxaa dadka dhimandigoodii ah ee ku weydiinayaan u keen si maxalle ganacsigaagana uu u socdo saas oo kale dadka baahiyahooda aad u daboosho lambarka saddexaad waxa weeyaan samee joogteen qorshana degso joogteen samee oo ogow ganacsigaagii haddii oo intaad bilowda aad ka tagto ma noqonayo mid dhaxal gala laakiin ganacsigaas haddii aad joogteydo waxaa laga yaabaa inuu meel fiican uu ku gaaro saas oo kale waxaa lagaa doonayaa inaad qorshe samaysato qorshaha sanadka qorshaha 3 bilood qorshaha 6 bilood ogow bil gudaheedii maxaa la yidhahdaa ganacsigaaga kuma guuleysan kartid 3 qalad ay galaan dadka ganacsatada yaryar waxaa weeyaan lacagtooda oo dhan ayay geliyaan deetana wixii dadkii u baahnaayeen waxaan ahayn intay keenaan bay leeyihiin ganacsiga ku fashilmay saas oo kale qorshe la'aan ayay ganacsigu galaan qorshe la'aantaasna waxay keenaysaa inaad ganacsiga aad ku fashilanto qaladka ugu dambeeya ee dadka galaan waxa weeyaan in ganacsigoodii ay ka dhigaan mid aan unique ahayn waxay keenayaan all in one deetana waxay sameynayaan wixii dadka u baahnaayeen maba helayaan marka qorshaha ganacsiga waxa weeyaan kow inaad lacagtaada oo dhan aadan gelin 2 inaad budgeting aad samayso ama qorshe saas oo kale arrinka saddexaad inaad joogteen samayso samir iyo dulqaad soo jiidasho macaamiisha aad samayso ogow hal macaamiil oo kaa carooda ayaa ganacsigaaga ku burburaya saas oo kale hal macaamiil oo aad soo jiidatana ganacsigaaga ku dhismaya saas oo kale halkan waxaan ugu yeerayaa dadka tabakaayooyinka dukaanada ku haysta xaafadaha waxaad haysataan jaanis ah in aad hataa ilmaha aad wax ka iibin kartaan waayo canuga yar ee ruuca sonkorta loo soo diray ama kiilada sonkorta loo soo diray waxaad u raacin kartaa xabad nacnac waxba kama halaynayso laakiin dukaankaagana way kuu qurxinaysaa oo macaamilkaasi kaa iibsaday
marka sheeko ayaa jirto oo ugu talagalay arrinkan. Sheekadaas qaybta TikTok ayaan soo dhigayaa, marka halkaas aan kasoo wada daawano kulligeen. Somali Info Center, Abdulqaadir Xasan Cabdi, waqtiga ha idin wacnaado.